taaka kamida dhulka godobiirsi kama tanaasulayo inta aan noolahay waxa sidaasi yiri waaska guud ee beelaha godobiirsi waas Cabdirashiid oo ka hadlay xiisada ka dhalatay qabashada xafladda sanad guurada xeerka Ciise ee shanta bishan la filayo in lagu qabto magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal xiisad xoogan ayaa wali taagan waaskuna waa ka hadlay shacabkana waa la hadlay go'aankiisa iyo mowqifkiisana waa ka hadlay waxa dhanka kaleeto iyadana ay shacabku dhigayaan dibadbaxyo iyo sidoo kaleeto hadallo markaas kicina bal intaana dul istaagin xogii ugu dambeeyay ee xaaladaas ka dhalatay bal wax yar horta aynu daawano muuqaalo kooban dadka ka hadlay arrimaha ku saabsan qabashada xafladda sanad guurada xeerka Ciise ee magaalada Saylac lagu qabanayo كوغاس ahaan inta aan noolahay dhulka Gadabuursi taaka kamida kama tanaasuleyno mana ogolaan doono wax kasto shiki gelinay bismillaahir rahmaanir rahiim shirkaygan jaraa'id wuxuu daaran yahay saddex qodob in gabi ahaanba la dhalinyarada la xidhay sida ugu dhaqso badan loo sii daayo kuwa kalena cagajugleynta laga daayo qodobka labaad dawladdu go'aankeedii hore waxba iskama bedelin xukuumaduna inooma sheegin sida la ajligeed dadkayga waxaan wargelinayaa inay isdejiyaan kana warsugaan go'aamada layna la wadaagayo kowgaas ahaan inta aan noolahay dhulka Gadabuursi taaka kamida kama tanaasuleyno mana ogolaan doono wax kasto shiki gelinaya ilaahi tallaahi haddaad subaxa aroortaad sii dayn weydo waxa kugu dhacaada isgaarsiin boore mana nabad ahaan mayso oo wallaahi oo bilaa oo tallaaban kuri adigoo bisad ka yar baad halka ka bixi adoo bisad ka yar ayaad boorba ka bixi wallaahi bilaahi tallaahi waxaan ku leeyahay barasaabko dhalinyartayda iyo dadkayga shicibkayga aad xidhaysa haddii dib u joogso waydo in dhafoorka laga toogano anoo naagi alladii ka adeegsanayaan anigu toos ku soo doonanay ayaa igu wallaahi oo igu bilaahi oo igu tallaahiya dhinaca kaleeto waxaa si weyn gudaha Somaliland uga socota abaabul iyo sidoo kaleeto xiisado xoogan oo ka dhalatay shiqaaqadii shalayto ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee markaasi la isku risaaseeyeen ciidanka booliska ilaalada garoonka iyo ciidan la socday madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi bal wax yar iyadana muuqaalada siyaad mar labaad dhashay waxa weeye la dagaalamo marka dadka hal xoreeyay baan leey wadanka soo inaga dhisnay anagu madaxtooyada leenahay hadaa kula daawa oo teerana oo madaxtooyada ku haysto Muuse Biixi waxa la doonayaa in la xabareeyo waa mashiyana Sayid Cabdiraxmaan bilaabay waana la soo wada qaadanaya rag iyo dumarna ma kala harayo daharaad silmiya aanu inagu yaraanin maanta isku dayga dil ee dhacay ee la doonayay Muuse Biixi Cabdi way dhinaca kale hadii aynu eegno siyaasi jaamac Shabeel oo dhawaan ka laabtay maamulka waqooyi bari gaar ahaan magaalada Laascaanood oo asbuucyo ku sugnaa ayaa isagana shalayto lagu xiray magaalada Wajaale ee markaasi dhinaca Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa gacanta ku haysa oo qabatay oo xidhay siyaasi jaamac Shabeel iyadana siyaasi oo weyn oo oday oo rugcada oo xalayta jeelka ku hayday mid iyo labo ayaan ka dul istaagaya soo dhawaada idinkuna aragtidina ula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay xiisad xoogan ayaa wali ka taagan qabashada xafladda sanad guurada xeerka Ciise ee beelaha Ciise ay ku heshiiyeen in ay ku qabsadaan magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal Boorama iyo sidoo kaleeto awdalba waxa ka socdo abaabul xoogan dibadbaxyo ayay dadka shacabka dhigayaan shirar ayaa ka socday maalmihii la soo dhaafay oo ay yeelanayeen odayaasha dhaqanka ee gobol waxa weeye Godobiirsi iyo sidoo kale xubnaha siyaasadda ku matala wasiirada iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale ee markaasi xukuumadda ku jira oo ciro uu soo diray in ay xaaladda dejiyaan loo soo diray odayaashu dhowr maalin oo isdaba joog ay ku shirayeen magaalada Boorama wax go'aana kama soo bixin waxa ayna loo gudbay wajiga labaad
oo in Hargeysa iyo xukuumadda lala hadlo oo loo tagaa wax go'aana oo ilaa iyo hadda ka soo baxayna ma jiro iyadoo xaaladdu ay cakiran tahay shacabkuna ay dhagaha taagayaan lama qaban karo xafladda Ceer Ciisena la leeyahay 3 bari oo keliyana ay ka dhiman tahay qabashada xeerka Ciise Uwaas Cabdirashiid oo ah uwaaska guud ee beelaha Godobiirsi ayaa hadal aad moodid in AI lagu sameeyay markaad fiirisid oo meel dheer uu ka hadlayo ayaa soo saaray uwaasku wuxuu sheegay markaan qiimeeyno hadalkiisa siday doontaba ha loo sameeyo ama siday doontaba ha loo duube waxa uu uwaasku sheegay in uusan ka tanaasuleynin taaka kamida dhulka Godobiirsi inta uu nool yahay waxa uu ku daray shacabku 3 qodob buu gabigiisaba uu ka hadlayba inuusan ka tanaasuleynin taaka kamida dhulka Godobiirsi inta uu nool yahay in ay istajiyaan shacabku oo ay ka warsugaan go'aanka xukuumadda maadaama sidii ay horay dawladda xukuumadda Soomaaliland ay warka ugu dhawaaqday aysan ka laabanin in laga warsugo oo dadku ay istajiyaan in la sii daayo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo dhalinyaro xukuumaddu ay xidhxidhay oo shalayta lagu xidhay magaalada Booraba oo xabsiyada ku jira 3daasi qodob buu ka hadlay waliba muu faahfaahinine dadku hay istajiyaan hana ka warsugaan go'aanka xukuumadda dadka xidhanna si shuruud la'aan ha loo sii daayo wili waa in shuruud la'aan lagu sii daayo arrintaas waa qodobadeena waan ka soo dhaafay oo micnaha waan hilmaamay dhalinyaro badan baa xidhan oo barasaabka gobolka uu amray in la xidho waa dhalinyaradii waday abaabulka kicinta bulshada iyo sidoo kale in dagaal la qaado oo xasaarado iyo dibadbaxyo ayay abuurayeen oo ay sameynayeen ka shaqeynayeen dhalinyarada marka waa la xidhay xalay xabsiga ayay u hoydeen marka waasku 3daasi qodob ayuu ka hadlay markii hadalkiisa nuxurkiisa la eego haddaba arrimaha la isweydiin baa waxay tahay Godobiirsi dhulkiisa yaa duulaan ku ah yaa raba inuu qaato yaa ku faraxsan Godobiirsi dhulkiisa cidna ma qaadan karto waa qabiil Soomaaliyeed waxa weeye waa beelaha Soomaaliyeed beel kamida waa dad aqoonyahan oo mutacalimiin lagu tilmaamo Soomaali wax badan la soo qabta xagga waxbarashada waa dad gobo iyo khiyaara waa dad waxa weeye dhaqan iyo dhaqan wax gooya leh weeye marka dad lagu xadgudbi karo ama la weerari karo ama dhulkooda la qaadan karo ama beebeen loogu duuli karo horta ma aha dadka la leeyahay dhulka Godobiirsi qaadanayaan loo fasiranayana waa Ciise iyagana sidaas la mid ah Ciise dhulku haysta ka badan oo haddii Ciise oo dhan waxa weeye boqolaal sano xataa ay sii dhaldalaan aysan buuxin karin Ciise waa dadka ugu dhulka weyn Soomaalida beelaha Soomaaliyeed markii beelbeel la yiraahdo waa dadka ugu dhulka weyn weeye waa dad 3daas dawladood dega Djibouti oo ayagu ay gacanta ku hayaan 30 sano meesha la yiraahdo Soomaaliya oo dhulkan Soomaaliland ay la leeyahay dhulkan oo dhan bay Salal oo dhan bay degaan iyo awdal waliba dhinac ay ka degaan xaggana Ethiopia ay degaan 3daasi wadan Soomaaliya Djibouti iyo Ethiopia ay degaan iyagana sidaas la mid ah duulaan dhul ay ku yihiin inta aynu ognahay ee muuqata uurkooda Ilaahay baa garanaye laakiin inta Soomaali u muuqata Ciise duulaana oo dhul samaroon ama dhul Soomaaliyeed oo kala duulaan ku ayadana ma jiro hadalka qofna si u dheh qofna si u faham uwaasku waxa uu yiri taaka kamida dhul Godobiirsi inta noolahay kama tanaasulay Godobiirsi dhulkiisu waa dhul la yaqaano cidda kale duulaan ku ee qarsoon oo aan garaneynina Soomaali baa u joogta Ciisana hadda duulaan dhul kuma aha hadal lima runta ka sheegay been baa uu kaydsan Ciise xafladiisu raba inuu ku qabsado Saylac si nabadgeliya xeerkiisu raba inuu ku qabsado Saylac dadkiisu raba inuu kula hadlo Saylac oo daliya dibadba uu kala hadlo Ciise marka ma doonayaan dagaal ma doonayaan arbushaad way aaminsan yihiin magaalada in la degaya way aaminsan yihiin samaroon inay daris yihiin Ethiopia iyo Soomaaliya
iyo Jabuuti ba dad wada degan dad iyagu iskugu dhow dad darisa inay yihiin way aaminsan yihiin balse hadalka waa la xumaynayaa oo waa la qalqaloocinayaa qalqalooca hadalkana waxaa ka dhasha dhibaato ayaa ka dhalata marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aysan halkaasi dhibaato ka dhicin dadkaasi Soomaaliyeedna aysan islaynin maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday shirar oo magaalada Boorama ka socday isimada dhaqanka ee beelaha Godobiirsa ayuu u socday wax natiijana kama soo bixin waxaana loo wareegay sida ay xogtu ugu soo gaarayso in wajiga labaad loola tago ciro oo lagu qabto magaalada Hargeysa oo halkaasi kulamadu ay ka sii socdaan shirarkan waxay ku soo beegmayaan xilli gabagaba ay taagan tahay waqtigii isimada dhaqanka ee beelaha Ciise ay u qabteen qabashada xafladda sanad guurada xeerka Ciise 5 bishan oo 3 maalin oo kaliya ay ka dhiman tahay ayaa loo asteeyay in xafladdaasi ay bilaabato gudiyada qabanqaabada xafladdan magaalada Sayrac ay ku sugan yihiin xoolihii raashinkii iyo wax walba iyo agab walba oo lagu qaban lahaa xafladana Sayrac ayay ku sugan yihiin ismadii dhaqanka ee beelaha Ciise Jabuuti ayay waayihii ugu dambeeyay ku sugnaayeen waxayna sheegeen inaysan wax iska bedelay uusan jirin mowqifkii hore ee ismada dhaqanka ee beelaha Ciise isla qaateen dhanka xukuumaddu waxay iyadu go'aansatay in ay ka laabato go'aankii hore ee lagu joojiyay qabashada xafladdaas isla markaana waxaa loo fasaxay oo ismada si hoose loola hadlay Ciise in markaasi ay qabsadaan xafladooda oo si nabadgeliya ay ku qabsadaan wada hadal iyo sidoo kale wada xaajoodiye kadib wali officially ugumay dhawaaqin xukuumaddu balse waxaa la xaqiijiyay inay ogol yihiin waana mid keentay in shacabka gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama dibadbaxyo ay dhigaan oo si joogta ay warbaahintana ula hadlaan dhalinyaro ayaa xiran oo magaalada Boorama ku xidhan sida muuqaalka qaybta hore baan kaga hadlay iyadana dhalinyaradaasi waxay u xidhan yihiin abaabulka iyo sidoo kale kicinta xasaaradaha iyo dibadbaxyadan ka socda magaalada Boorama inta markaan ka imaano waynu eegi doonaa wixii ka soo kordhay waxaa weli taagan xiisad xoogan oo ka dhalatay shiqaaqadii shalayto ka dhacday garoonka ama madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa halkaas oo uu ka dhoofayay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi ayaa watay ciidamo ilaalo ah kadib ciidanka ilaalada ayaa horkacayay waxayna doonayeen in markaasi Muuse Biixi uu si toos ah gudaha ugu galo isaga oo ciidankiisa iyo dadkiisa wata ciidankii booliska ilaalada madaarka ayaa diiday oo hor istaagay rasaas ayaana halkaasi ka dhacday xalayna muuqaal ayaan kaga hadalay arrin marka taasi ka dhalatay ayaa weli taagan oo dadku waxay aad u hadal hayaan inay ahayd beegsi toos ah oo markaasi lagula kacay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi beelbeel ayaana hadda la iskugu dhagayo Garxajis iyo Subeer Awal ayay hadda ka dhex taagantahay waasay dadku hadaladooda u dhigeen shirar ayaa socda isimadii dhaqanka Subeer Awal waxay sheegeen in ay talaabadan ka argudan doonaan Garxajis ayna tahay dagaal Garxajis uu cilaamiyay iyaguna ay qaadi doonaan talaabo waa sida ay hadalka u dhigeen iyadana waynu eegi doonaa dibadbaxyaa socda shirar baa socda si weyn ayaa arrintaasi looga hor imaaday oo markaasi looga xumaaday waynu eegi doonaa dhinaca kale ciidanka booliska ee maamulka Somaliland ayaa magaalada Wajaale shalay waxay ku xidheen siyaasi Jaamac Shabeel oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee maamulka Somaliland kaas oo maalmo ka hor ka laabtay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari Jaamac Shabeel Laascaanood ayuu muddo ku sugnaa isagoo waliba soo maray Buuhoodle waxa uuna halkaasi ugu sugnaa wada hadal iyo wada xaajood uu la furay maamulkaasi Waqooyi Bari iyo waliba isimada dhaqanka ee Waqooyi Bari iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo markaasi uu kala hadlayay in maxaabiista la isdhaafsado oo maxaabiista dhinaca Somaliland iyo maxaabiista kale Waqooyi Bari la isdhaafsado amaba la sii daayaba ciidanka ayaa gacanta ku dhigay kadib markii uu halkaasi ku laabtay waxaana loo haystaa